مركز كان سابق سونتين وحال بلابي لو كن يتضبدي مركز سنة كان سنة كي طبعا تضباد مريا سنة كي طبعا سديدات مريا نكوا مركز قان جاري رنتي إلهي سبحانه وتعالى حفظيه مركز كان قفك بلابي ومع علي مع الحسين مع محمد ilmihii ugu horeeyay oo 30 arday aan dugsi aan ku bilownay oo markii aan marayno farbarkiisa oo farbarkii u horeeyay soo bandhigay 6 bilood ama 7 bilood buu macalinku ku soo diyaariyay kadibna farbarkii yaan culimo u soo yeernay Sheekh Masuudaan baa wuxuu yiri ilmahan sidan wax loo baray in iskuul baa la geyn doonaa marka fikrad waxaan ugu dhalatay marka aan iskuul banaanka aan la geynin iskuulka halkaan aan ka aasno الحمد لله مركز كاس وعلى أفلحي دد آديات وفربضانا كأفلحي ولب أفواج كي ووري كو يلا بيا سدحي أفر آد بايما أرتي الماس ليبان وينو قارين هير هدا دد كي نوغوري أي مرة هيان دد بدن إن أي دخاتر أو ولب دخاتر وين أي مرة هيان وكولج كما يبلابين توسي جامعة دو قالين نمن ما أردت إنجنيرة قبل معلمات أو جامعة الأمة قبل كجيران جامعة راف قبل كجيران جامعة نيروبي يونيفرسيتي والكجيرة جيكوات والكجيرة قراء بيليهين وما أردت دد قرانك الحمد لله ميل سرك جاري بيليهين مركز عالية معها إلهي سبحانه وتعالى هنو دائما هو شاس يوصي ما أردت أن قبل لوني iyo sida hadda maanta alxamdulillah uu marayo hawshan marka dadka halka soo gaarsiiyay waa laba qolo waa macallimiin iyo waalidiin waay nambarka saddexaad waxa soo galaya gudiga ayaa soo galaya ardaydaas oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku marnaysay inay halkan quraan ka bartaan madrasa ay ka bartaan iskuulka ay ku bartaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadan wuxuu sharaf u siiyay in quraanka uu u noqdo meesha ummadda Soomaalida meel kasta ay joogan ayaa quraanku wuxuu noo yahay caalamka maanta adduunka inaan u sidno adduunka meesha maanta uu marayo meel walbo hadii Dubai lagu qabto ilmo Soomaali baa imaanayaan arqaamta ka aruursanayaan number 1 2 3 hadii maartay lagu qabto wadan Afrikaana sidaas oo kale Soomaalidu alxamdulillah quraanka amal fal baan ugu yare laakiin quraanka xifdigiisa alxamdulillah meel aad iyo aad u dheer ayaan maraynaa saad u xasuustaan asbuucii la soo dhaafay tartanka magaaladeena uu ka dhacay Gaarisa Wajiya iyo Mandera tartanka ka dhacay waa la ogaa uu hogaaminayay jazaahullahu khair qaariga muqriga Sheekh Abdirashiid Sheekh Ali Suufi oo sanadkii saddexaad uu nala joogay 2 sanana ay ka soo qayb galayeen Wajiya iyo Gaarisa aad iyo aad baa ma artay halkaas tartan aad iyo aad u kulul ayaa ka dhacay sanadkii hore tartanka inuu sanadkan ka kululaad moodaa reer Mandera alxamdulillah waxay ku guuleysteen quraanka oo dhan reer Mandera ayaa u horeeyeen number 1 2 3 4 number 5 na ahlu Gaarisa ay ahaayeen reer Wajeer tababar bay soo qaadanayaan sanad hore way liiteen sanadkan ma sha Allah aad bay u sareeyeen laakiin nasiib uma yeelan in number ay ku soo gudbaan qaybta labaad oo 15 juz aana reer Gaarisa ayaa ku guuleysteen numberka koowaad iyo numberka labaad Manderana 3 iyo 4 iyo 5 ayay galeen sidaas ay ahlu Mandera ay 7 arday 10kii cunug 7 arday bay ugu guuleysteen reer Gaarisana 3 arday ayaa ugu guuleysatay oo sheekheena Sheekh Abdirashiid oo ilaa uu ka yiraahdo aruur sidan u yar oo quraanka xifdigii itqaankii tajwiidkii wax walba ma aragtay ilmahaas 36 arday bay ahaayeen canug saqaashan ka hooseeyay ma jirin marka arrin mucjizo ah aad iyo aad u layaab leh ayay ahayd marka walaalayaal quraanka inaan xoog saarno hawshan ma aragtay aan kamera dhalino gabdhiyo wiilalba waad u jeedaan qaybtii madrasada gabdha ayaa 1 2 3 ahaayeen wiilku ma jirin marka gabdhaha dhanka diinta inay nooga bataan ayaa aad iyo aad u fiican dhanka kalena lama diidayo gabdhaha inay dhaqaatir noqdaan waa la rabaa inay macallimaad noqdaan waa la rabaa laakiin canugeena meel cid ayuu san dhixin
in meel sare oo maartay adduunkiisa aakhiradiisba uu ka gaaro taasna waalidiinta aabbaha iyo hooyada ayaa maartay sharaf ku leh maanta waxaad moodaa waalidiinta ahlu qaadisiya rag maanta waa la yimid ma aqaano saan ma ahaan jirin rag maanta waa la imaaday mise arday yar baa ku dhex jirtay aad baad u mahadsantihiin anu mar walba microphone aan qabsado meel kasta oo la joogo waxaan aad u mahad celiyaa hooyooyinka oo ilmahan soo saaraan saad ogsoontihiin madrasada koowaad oo cunugu ka soo baxo waa madrasada hooyada marka hooyooyinka waayahan meelihii anaga aan qaban lahayn dhammaan ayaga ayaa hayaan lowla ilaahay ka soke hooyooyinkaas ayaa guushan ilmahan yaa soo gaarsiiyeen sababtoo ah habeen iyo maalin ayaga ayaa la joogaan anaga waa iska maqannahay aad bayna u mahadsan yihiin hooyooyinka howshaas maaragtay ay ilmahaas ay ku hogaaminayaan inay diintooda iyo adduunkoodaba ay wax ka bartaan marka hooyooyinka waxaan idin leeyahay ilaahay waxaad ka barisaan in timaarta ama miraha aad dhalinaysaan inuu ilaahay idin gaarsiiyo caruurtan aad saan wax u soo bartaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo jaamacada ka baxeen ayagoo baxe mushtara ayagoo dhakhaatiir ayagoo culamo ayagoo quraa inuu ilaahay idin gaarsiiyo ayaa maartay ilaahay annana aan ka barinaynaa adinkana ilaahay u barya ilmaha